waxaynu wax yar ka tilmaami doonaa in sha allahu tacaala waxa jaa-ifada ama sabiga la yidhaahdo ee nebi maxamed khuseeye calayhi الsalaatu wassalaam si loo ogaado maxaa jaa-ifa ah maxaa aflagaada ah maxaa meelka dhac ku ah subanaha salawaatu rabbi wasalaamu calayh nafsi اlfidaau liqabrin anta saakinuhu fiihi اlcafaafu wa fiihi اljuud wاlkaram. kelimadaa ujeedadeedu ma aha in axad bini aadam ah muslim iyo gaal wuxuu doonay ha noqdo lagu radinayo ama loola jeedo. ujeedadeedu ma aha difaac nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam ee khulaasadeedu waxaa weeye adaa-u maa wajab wa badlu bacdi maa lazim. waajibkana saaraa wax ka mid inaan gudanno, wixii nagu laasima qeyb ka mid inaan dhiibno. intaa way ujeedadu, dan kaloon kaleenahay ma ay jirto. axad bini aadam oo jazo iyo shakuur midna aan ka doonaynana ma au jiro. axad bini aadamoo nagu qasbana ma ay jirto. weliba dad ahala waxay isku daya inaan joojiyo on baajiyo kelimada, laakiin waxaan u arkay inay tahay waxyaabaha lagu leeyahay waxyaabaha ugu culus ama ugu qiimo badan. masaa'il dhowr ah oo ka kooban baan dul istaagi doonaa. haddii aan galabta gabagabeeyana waa khayr, haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala berri igu simana berri baan gabagabayn haddii alla yidhaah. masalada koobaad, wax yaroo hordhaca ama arar ah ayaa waxaynu ka tilmaamaynaa xaqa uu nabigu calayhi salaatu wassalaam ummadda uu ku leehay. waxaynu wax yar ka tilmaami doonaa in sha allahu tacaala waxa jaa-ifada ama sabiga la yidhaahdo ee nebi maxamed khuseeye calayhi salaatu wassalaam si loo ogaado maxaa jaa-ifa ah maxaa aflagaada ah maxaa meelka dhac ku ah subanaha salawaatu rabbi wasalaamu calayh nafsi اlfidaau liqabrin anta saakinuhu fiihi اlcafaafu wa fiihi اljuud wاlkaram. waxaan wax ka tilmaami doonaa in sha allahu tacaala xugumka ruuxa nabiga ku aflagaadooda, gaal iyo muslim wuxuu doonayba ha noqdee. waxaynu wax ka tilmaami doonaa in sha allahu tacaala xugumka adiladiisa si kokooban oon waktigu uu saamaxayo. waxaynu wax ka tilmaami doonaa haddii alla yidhaahdo alqudratu waاlintisaaru lilrasuul. waxaan wax ka tilmaami doonaa almaslaxatu fi اlintisaari lirasuuli calayhi الsalaatu wassalaam. waxaynu wax ka tilmaami doonaa caamo yaa ku culimo ah. waajibkaas wixii aan ka gaadha in sha allahu tacaala tilmaami doona. waxaa igu dambayn doona in sha allahu tacaala xukmu sharci wa xuriyat اlqowl. sharciga xukumkiisa iyo xuriyat اlqowl ayadna wax baan ka odhan doonaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu simo. masalada koobaad haddaan ku horeeyo, xaqa suubanuhu calayhi الsalaatu wassalaam uu ummaddiisa ku leeyahay waxaa kow ka ah in suubanaha aynu ka jeclaano axad walba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u abuuray. sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratukum
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. محايا لي علماء وحيد حقيقة المحبة وحاوي الميل لما يوافق لثلاثة أسباب. محبة الربطة وحاوي وحنفتا أي كهليس أما أتشعشهاي أما أدوني صدو إيرته شعيل كان صدح شيبا كان أحد كإن لا تشعلاب إما لجمال صورة أو لحسن سيرة أو لوصول إحسان إليك صدح ذا السبب كانتا إن الروح تشعلاته محبة ربا أون ديل ديل يأفك باركي سان كأهي إنه أحد قروح سنيها وإلهي سبحانه وتعالى قروح يقيمة ودنبيي إيا إن دقا وناكسن إيا أخلاق وناكسن أوليهي إيا إن إحسان إيا أبال إيا قلد إيا قعن كاسو قادو لجمال صورة لحسن سيرة لوصول إحسان إليك من جانبه. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سيدات كور قبطان لقد رقسان أما إن بدنوا أنك كميدا إنه كما حابسا وحين أقنهي إنه إلهي سبحانه وتعالى سوق رحسن أو قيمة بدن أو قرب ربي وأبوري جمال الصورة إلهي باسيه سبحانه وتعالى أحسن الخلق وأجملهم بؤها إلهي سبحانه وتعالى وحسي حسن سيرة دقا وناك وإنك لعلى خلق عظيم. سيرة يا دقنك يا أجاسنك يا ماملك يا إلهي وحو قليا وحلك سوكو بكرمه هدي قضبك قدام بيلوي ما دو إحسان نجسو قريسو بنهنا وح خير أدونك ما أنت يا لؤردن وحاسبك وضع الأنبياء والمرسلين وحي الشرع ما أنت الدنيا لنا وحو كيمد مخالفة الرسل والأنبياء. إلهي سبحانه وتعالى الدنيا أنبياء كب اللابي مركا قدام بيسنا وكوجنا ندي دونا إلهي سبحانه وتعالى وحي وناقة أما خير ما أنت هيسنو هيا هذا هبطنا نقيمد أما صابوا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إيو وليه سكال أنبياء الرسول شاءها مركا إحسان كان نقصو قاريسو بناها وحل كوبي كرا أما القياسي كرا معها أحد بنا آدم أو نقلت بدن أما أبالي يقع النبي قال نقال مجره مركا جمال صورة حسن سيرة وصول إحسان إلينا من جهته صدح ذا قضبا كينا يا إلهي سبحانه وتعالى إنه نبي ميقان كاس يا الدرجة ذا أوردق حق محبديسه نبينا أكيد هذا عمر كيدي الآن يا عمر حقوق ظهير ونبي نقول وحاكمي هذا هذا بوبسيو نبي إن لو قرقارو لقرب استاغو الله لي واجبه لتعزروه وتوقروه. تعزيرك علماء أنه وحيلي واسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه. التعزير صدق لي جرتين عباده واسم جامع وحيدا علماء وتعزروه وحلوغ جيدا اسم جامع لنصره أو لنصرته وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه. نبي محمد ولا قرب استاغو الله ليه ووح والبور دبيا لقى الدفاع وي وحا حقوقيسا كميدا ومسلمين تكولياي يا قصبك إن النبي وينيان ويوح والبكهر مريان توقيركم علو وحيد واسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. توقيرك وحاوي وحوال بو حسلوني يدقنان يوينين يقدرين يقيمين كل سنة إن النبي اللقب بالله عليه الصلاة والسلام وحا حقوقي سكامدة إن المسلمين تؤقادان عرضك محمد صلوات ربي وسلام عليه شرفتيسو إلهي خلقه قردن بكو واجبية لإنه يلقى بلان شرفتا يا عرضقاس صلاة إيا سلام إيا أمان إيا شرفين إيا قدرين إيا قيمين
aan kala har lahayn nihaayiya dhammaadna aan lahayn taasoo keentay in nabiga xataa lagu dhowro aalkiisi iyo saxaabadiisi iyo qaraabadiisi oy culimmadu gaadhsiiyeen nabiga iska daayee aswaajtii nebi maxamed ninkii jaa'ifeeya ee zina ku sheega inuu gaal yooso muslim ahay maxaa yeelay suubanaha dhibsanaya ina aladiina yu'duuna rasuula allahi lahum cadaabun aliim maxaa yeelay cirdiga iyo sharafta nebi maxamed waa midda diinka ilaahay uu ku taagan yahay kitaabka rabbigay baa ku taagan iyo addoommaha mu'miniinta asaga sababkiibay janno ugu waajibtay liqowmin naarna ugu waajibtay liaakhariin asaga sababkiibay ummaddu ku noqotay khayra ummatin ukhrijat linnaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sharaftiisa iyo maqaamkiisa la xidhiidhiyey xuskiisuu xuska suubanaha la xidhiidhiyey wa jamaca baynahu wa bayna nabiyihi fii kitaabatin waaxida shahaadada islaamka lagu soo galo rasuulkiiyo allah isku ladhan aadaankaad maalinkii 5 goor aadaantaan nabiga iyo allah isku ladhan atixiyaadka dhexdiisa shahaadateynka suubanaha iyo allah isku ladhan intaasoo dhan rabbi wuxuu u yeelay bay culimmadu leeyihiin in lagu tuso haddaad adigu garan weyday nabiga meeqaanka iyo darajada ilahi agtiisa uu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka soo qaaday nebi maxamed ninkii bayca la galee gacan saaray inuu ilaahay gacan saaray ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah yad ullahi fowqa aydihim ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka yeelay nebi maxamed oo la adeeco asaga in la adeecay man yutic arasuula faqad ataaca allah waman tawallaa famaa arsalnaaka calayhim xafiida ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka yeelay suubanahoo la dhibo lagu xadgudbay in asaga lagu xadgudbay ina aladiina yu'duuna allaha warasuulah lacanahum allahu fi اdunya wاlaakhira wa acadda lahum cadaaban muhiina culammada muslimiintu waxay caddeeyeen cirdiga qiimahaas iyo sharafta iyo qiimahaale iyo qadarkaas inaan lagu dhowri karin waxaan ka ahayn ruuxii ku xadgudbay in laga argoosto been bay idiin sheegeen kuwa idin yidhi siirada nabi maxamed ha loo akhriyo ardaalada iyo tuugta mooryaan diimeedka idin yidhi nebi maxamed haddii lagu xadgudbo siiraa la akhriyaa been bay idiin sheegeen culummadu iyo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo kutubta iyo usuus iyo masaadirta muslimiinta waxaa ku qoran anugu malihiye sidaas weeye laa yasuunu hada alcird ila alintiqaam lahu bilqatli waاtaqtiil sidaasay culimmadu leeyihiin cirdiga noocaas ee sharaftaas ah aadamaha horortada noqday ee xadgudbay ee nabiga laga kari waayey inta la midka ah xukumkaasuu mudayo waan gaari doonaay iyoanaan ka hor dhicin ma aha hawsha ayadaa suubanaha keliya ma khusayso siduu sheegay majdi khaliil qibdigii nasraaniga ahaa ee habeenkii u dambaysay jasiire la keenay xuquuqda nebi maxamed ee hadda aynu ka hadlayno nabi ciisa mudan xukumka gaalnimoa ama dil ee aflagaadiya xadgudub ambiye ku saabsan nabigeena gooni kumaha bilitifaaqi walijmac min abina aadam ilaa muxamedin calayhi salaatu wasalaam wixii rusul iyo ambiye alla soo diray barakaysnaabaa xukumka iska leh siduu nabigu u yidhi haddaad aniga igu sallidaan iyagana ku salliya fa inahum bucithuu kamaa bucithuu walaalihii wey lama kala reebi karo xuquuq dheeraad ah oo ka umma ahaan annaga uu nagu leeyahay way jirtaa laakiin xukumkan weynaynu ka hadlayno way wadaagaan